So sidee caawis ay ku heli karaan dadkan? nimcoy waa su'aal fiican. Qofku sidee buu caawimaad ku helayaa? Horta qofku wuxuu caawimaad ku heli karaa marka hore inuu ogaado inuu dee problemkani horta inuuba jiraba uu isagu haysto, inuu ogaado waan. So marka self awareness-ka ama inuu ogaado taas waa ta ugu horeysa, waana ta ugu adag maadaama oo dadku inta badan ay dad kala blame garaynayaan aynan toodi u fiirsanayn. Laakiin waxyaabaha uu ku ogaan karaa waxay tahay haddii masalan dhowr qof oo guriga kula jooga intaba isku wax kuu sheegaan, dan markaa inaad naftaada u yar fiirsato oo tiraahid dee hadalladan ay dadkani sheegayaan ay isku raacsan yihiin ma waxbaa ka jira. So dan markaa inaad naftaada dib ugu yara noqotid, dan emotionkaaga adeegtid dareemadaada ad tiraahid xanaaqani xaguu ka imanayaa, dagaalkan xaguu ka imanayaa, waxyaabihi aad project garanaysa inaad markaa eegtid kadibna aad tiraahid malaha anaa iga imanayaan oo aad emotional ownershipkaad samaysa inaad adigu ay wixii ay kaa imanayaan. Badanaana way yara adag tahay dadka badanaa projectionka sameeyo dadka personality disorderska qaba sida narcissismka iyo dad kaloo caadiyana way sameeyaan laakiin kuwaabaa u badan. Marka maadaamay kuwa u badan yihiin inta badanna way ku adag tahay kuwaasi inay naftooda isku fiirsadaan because always dad kale ayay ka fikirayaan. Dadka qaarkood waxay ka odhanayaan iminka gaaladoo kale iyagu dhaqan waxa u leeyihin journaling, inuu qofkani emotionkiisa iyo wuxuu dareemayay iyo fikradii ku soo dhacay iyo waa lay necab yahay iyo qofkani aniga muxuu si xun igu eegaa iyo waxyaabahaas muxuu i khiyaamaa iyo inuu waxaa qorow ka bacdina uu yara analyze gareeyo uu u fiirsado, iyo naftiisa inuu qofku u fiirsado. Waxyaabaha noocaas oo kale way caawin karaan, but also I feelingkaas markuu emotional ownershipka uu samaynayo inuu yidhaahdo I'm feeling this way, I'm feeling tense, I'm feeling angry, waxyaaba noocaas oo kalea dan taas waxa weeyaan waxay keenaysaa inuu naftiisii iyo emotionkiisii iyo bodily reactionka jirhkiisu say dareemayaan inuu u fiirsado uu ogaado. Saan hore usoo sheegnay low self esteem hadduu meesha jiro qofku markaa inuu naftiisa u naxo. Nimcoy waxa interesting ahaa dadka waa lay necab yahay waa lay kan tahaya haddaad tiraahid naftaada adugu maad jeceshahay qaar badan way kula yaabayaan, waxay ku odhanayaan weliba dhaqanka soomaalida waxa lagu odhanaya nafteeda maxaanu ka jeclaanaya anigu marka dan waxaad odhanaysaa mogta adigu haddaad naftaada jeclaan weyda sidee baad rabtaa inay dadka kale u jeclaadaan mogta. Marka conceptiga dhan ba marka strange ku noqonayso qofkii Soomaaliga mogta markaad saa ula hadashid, bad qofku inuu naftiisa compassionate u noqdo oo uu yidhaahdo bini'aadan baan ahay waan khaldami karaa naftayda waa inaan u naxariisto oo taa laftigeeda dareemo dan waxay keenaysaa bini'aadankii kale inay iyagana marka ay qofkii qiimeeyaan oo de qofku markuu isagu isqiimeynaya dad kalena way qiimeynayaan. Marka intaa wixii ka sii badan psychotherapy buu qofkii aadi karaa, oo psychodynamics waxa la yidhahyo badana baaraysa meesha ay waxaani ka imanayaan iyo qofka unconsciouskiisa ama gudihiisa hoose waxa ku jira baaraysa sababta uu qofkani difaaca ugu jiro baaraysa ayuu tegi karaa, iyo cognitive behavioral therapy mid la yidhahyo iyadu xoogga saaraysa qofku waxaanuu dareemaya fikradan kusoo dhacaya sida ay qayb uga yihiin ficiladan uu samaynayo iyo hadalladan uu ku hadlayo waxsaasa. Marka taanad kuwaabay ka caawinaysaa inuu maskaxdiisii u caqli celiso oo xoogaa dejiso. Marka siyaabaha waa inta badan qofku isku caawin karaa mugta. And self-awareness way fiican tahay inaad naftaada ogaatid. And also like waa funny because maxay ahayd haddaad naftaada jecleen maxay ahayd ma ogid sida aad ixtiraamkaada hataa ma ogid iyo sidaad maxay ahayd aad iskula dhaqmaysid because ani and that comes along with the awareness too because for many years, you know, high school markaa ku jira I used to
write a lot of like self-hate journaling from to myself, and because nafti waa nabcaaba, and that became, you know, a way that for me, like dhibaato badan aan naftay u geysanayay, because naftaada markaa isbartid, and self compassion, you know, naftaada intaa isku naxariistid inaad maxay ahaydee affirmation ereyo fiican aad maskaxdaada ku dhexdid, way fiican tahay, because waxaa ogaanaysaa sida noloshaada aad maxay ahaydee aad iskula dhaqmaysid iyo sidaa u bedeli kartid. Even saaxiibaha raadsan jirtay ma raadsanaysid, because waa og tahay inay naftaada u fiicneen. صح صح wow, that's a very good point. waa point aad u fiican. And yes ayaan ku raacsanahay. And nimcoy laakiin dadku hadday iyagu projection kugu samaynayaan ka waran taas. Yeah, and that's the thing though, because dadkeena a lot of times maxaa u qaadanaa dad, even hadday is ogeen, it's not something inaad taaladgaraysid oo maxay ahaydee aada qof, you know, ku eedeynaya mise relationshipkaas inaad naftaada aad ku qasabtid ma ahan. Maxay ahaydee aniga maxaa u haystaa like qofkaas hadduuna is caawin karin, obviously u sheeg waxyaalaha ka qaldan ee suubinayaan, ba ina adi noloshaada ka fikirtid waaye, like dad qofkaas oo adi, you know, even maskaxdooda hadday joogin ayna ogeyn waxay suubinayaan, adaa u sheegaysa waxay suubinayaan inay qalad tahay, in haddayna caawis raadsanin also noloshaada dhiba u keenaysaa. sax sax waxa yaab leh again dhaqanka soomaalida kusoo noqonayna. By the way anigu mahmaayadan jeclahay, so I study them. Mahmaah baa jirtay, but it was funny. I mean in a way it wasn't the nicest mahmaah, but markaan yarayn baa la isticmaali jiray. Marka afka reer Jabuuti, anigu Jabuuti waan ka imid mugta, marka afka reer Jabuuti bido marka la yidhaahdo, bidada means waa gabadha aadka u kulul ee aadka u dagaalka badan ba ayagoo biday yidhaaheen mugta. Marka waxay odhan jireen bida, intaadan bida odhan bay bida ku tidhaa bay odhan jireen mugta. So I think haddii loosely aanu isticmaalo masalan maraykanka oo kale, waa qofkani wuxuu ka odhanayaa waad waalan tahay mugta. Marka iyagu marka maamaadooda waxay ka wadaan naxam, intaad adigu aadan odhan waad waalan tahay bay iyadu ka odhanaysaa waad waalan tahay, which is projection kii oo meesha jooga mugta. So that's a way to prepare you. Marka waa messageka ku jira mahmaahda waxay tahay expect inay projection kugu samaynayso adiga wixii dembigeedii iyadu ay lahayd adiga dusha kaa saarayso, but don't react to it just because qofkani said that it doesn't mean you are. So don't defend yourself and say anigu mayihi ha odhani. Just remember inay iyadu tahay, but wixii iyadu ay ahayd dusha kaa saarayso. And I'm sorry by the way, mahmaha soomaalida badanaa dumar baa loo isticmaalaa, but you know man also inuu ninku yahay baa dhici karta. So to me it's fascinating how mahmahda ay u isticmaali jireen si ay ula dhiilgareeyaan projectionka. So they will say qofkani masalan hadduu tuug yahay aduu ka odhanaya tuug baa tahay, so then mahmahdu waxay ku leedahay don't take seriously qofkan waxaanu ku leeyahay because iyaga ah. So by you just knowing adigoo inaad og tahayba inuu qofkan waxan isagu yahay adiga dusha kaa saarayo, then that saves you a lot of energy and emotional reaction mugta. So to me that was fascinating. Ina dhaqanka dadka saa lagu waanin jiro la odhan jiray oo mahmah baa jirta, bida intaad bida odhan bay bida ku tidhaahdaa. So then kind of prepare for it oo diyaar garow. So then the question is waxa weeyaan qof projection hadduu kula nool yahay, masalan ninkaagoo kale uu yahay, waalidkaagoo kale uu yahay, walaalkaagoo kale uu yahay, seed ula dhiilgarayni. So the first thing is waxa weeyaan say mahmahda she's sheegayso you have to be aware waxaanu qofkani kugu project garaynayo inaadan adigu ahayn laakiin isaga ay ka timiday. taa waa inaad ogaatid, so that will save you a lot of energy. ta kale labaad waxa weeyaan you can set a boundary. waxaad oran kartaa qofkii waan ogahay inaad u malaynaysa inaan xanaaqsanahay, laakiin waxaad u egta inaad adigu xanaaqsan tahay ee anigu ma xanaaqsanin. So then you are basically showing them that they're projecting xanaaqay iyagu qabeen to you, laakiin adigu it's the opposite, adu ma xanaaqsanin. So they should marka waa inay taa ogaadaan. So always
waxaanu qofku kugu accuse garaynayo, you can just assert yourself by saying waxaanad sheegaysa anigu ma yihi, but this is how I feel. I don't appreciate inuu qofku waxaanan ahayn oo igu sheego. So saasoo kale dad qofkii u macnaysid, then boundary baad iskaga sabab garanaysaa. So boundarieskaasi will help a lot. dadkana inta badan sida oo loo ogaado cause maxay ahayde a lot of times self awareness badan inta ogaatid waaye even because qofkaas wuxuu kuu sheegayo baa dhaqso iska qaadanaysaa mise noloshaadoo dhan dhibaatay kuu geynaysaa and then also maba iska celin kartidba because dadkeena maxay ahayde somehow qofka hadduu wax dhahay we question if it is true or not. And I feel like a lot of times it's about like adiga haddaad isgaranaynin the awareness lahayn qofkaad tahay confidence lahayn kalsooni aan lahayn dhibaato badan ay keenaysa sida aad aada ula dhaqmaysid qofkaas. Nimco, pointiga waa point aad muhiim u ah, because waxaan hadda soo xasuustay markaad ka sheekeynaysay masalan qofkan project garaynaya hadduu waalidkaayoo kale yahay adiguna qof yara tahay, dan way adkaanaysaa inaad fahantid waxaanu qofkan ku leeyahay waa tahay inaadan adigu ahayn, because qofkan you respect them, aad baad u respect garanaysaa. So dan wixii ay kugu yidhaaheen waxaad u qaadanaysaa inay runtood tahay muqta. Tusaale kalena waxa weeyaan masalan gabadhoo kale hadday low self esteem qabto oo iyadoo low self esteemkii qabta uu masalan ninkeedii ugu sii daro oo yidhaahdo waad sii daysay iyo waad cayishay iyo waad fal xumaatay iyo fadhigaagii waa badan iyo kan uu yidhaahdo, dan waxa weeyaan it's hard inay markaa iyadu ay wixii projection u aragto, because already iyadii baa kalsooni isku qabin, waxoogaa evidencena meeshuu jiro qofkii iyo ilmay dhasho waxa laga yaaba inay weight gain karaysay. So then wixii lagu lahaa inay internalize garayso oo wixii ay iska dhaadhiciso ay qaadato way fududaanaysaa. Ama hadduu kugu yidhaha qof macalinku oo kale somebody oo position of authority jooga meel madax kaa, so marka situationna noocaas oo kalea jira oo qofku exampleka ay kala soo dhex baxayo qofku uu qaadan karo, masalan hadduu yar yahoo kale iyo haddii already problem isagii haysto oo problemkiisii loogu sii daro, dan waa runta marka uu qaadan karaa waqtiyadaas. So markaasoo kale waxaa fiican inay caawimaan dadkaasoo kale ay raadiyaan oo second opinion ay raadiyaan oo dad kale la hadlaan ama therapist ay u tagaan muqta. Yeah, that's a good point because it goes to core belief, waxyaalahan soo barane markaan yareen iyo sida anaga isku aragno sida dadka kale u aragno, because maskaxdeena haddaana anagaba aan isfahmaynin mise anaga isku kalsooneen qof kale ma iska celin karno. And then also like maxaa raba intaa ku weydiiyo qofka adhahayse ilmaha yar hooyadiis mise aabihiis markay projectionkaas ku suubinayaan ay eedeynayaan asaga hadhowto muu ku kori karaa inuu waxyaalahaas dhaqankaas u qaato inay fiican tahay. ha uu ku gori karaayo dee defense mechanism kuwa meelaha ka yimaadeen marka horeba waa childhoodka. Marka dad badani waxay low self esteem u qabaan because waxa laga yaabaa inay hooyadood low self esteem qabtay and then she's projecting. Maxaa la idhahdaa gabadh fool xun baa tahay, gabadh kanaa tahay, gabadh kan kalaa tahay ay ku lahayd, because hooyadeed was not feeling good about herself. So then ilmihii then u internalize gareeyay wixii uu qaatay uu iska dhaadhiciyey inuu fool xun yahay oo qof xun uu yahay oo kan uu yahay. Then that will impact qofkii markuu soo weynaado hadhow relationship uu galo, then waxa weeyaan ninkaygu ima jecla anytime ninkuu yidhaahdo maxaa la yidhahdaa maxaad waxaan u samayn weyday, waxay leedahay oo naga kaloo aniga iga fiican baad rabtaa soo maha, because of that maxaa la yidhahdaa original projectionkaas lagu sameeyey markay yaraayeen low self esteemka ay ka develop gareeyeen, then relationshipkoodii uu u impact garaynaya. And then ninkuna he will always question uu odhanayaa anigu waxaan baan kala hadlay, why do you always accuse me, waxaanan meesha joogin muqta. So then it becomes that cycle muqta. Ilmahaygiina waxaa laga yaabaa inay iyada laftigeedu projectionka ay ku samayso ilmihii, oo dan cyclekaas uu saa u socdo muqta.
I have a lot of interest between, waxaan soo baranaa anagoo yar sida ay u muuqato markaan weynaano. So that's why I asked. Haa, I think haddaad u fiirsatay iminka attachment styleka iyo maxaa la yidhaahdaa early childhood developmental processka iyo you can see baarankii qofku ku soo koray repeats itself. صح. Next time waxaan ka hadlaynaa another defense mechanism and then hopefully waan wadana because I think there's about ilaa 10 iyaga ah ayaa jira but each one of them wuxuu tusayaa bini'aadanku siyaabaha ay subconscious lagula dhaqmaan iyagoo aanan ogeyn au dhaqmaan oo kale ayuu tusaya so marka it's interesting kii hore dadku they were repressing wax kasta iyagaa gudow ku qarsanayay kanina they are projecting qof dad kale ayay dusha ka saarayaan so I will be interested in the next one ka dambana waxay dadku samayn doonaan mugta And also commentiga hadday noo reebayaan midka kale ka hadli karno. Example ma siini kartaa kuwa kaloo ay qof hadduu, mid uu maxay ahayday uu rabo inuu ka ogaado more information. Oo ay rabaan inay doortaan commentigaada ku qori karaan mise commentigayga. Midkee example u siini lahayd kuway rabaan inaan ka hadalno. Wallahi, exampleku way badan yihiin displacement baa jirtaa sublimination rationalization compensation identification way badan yihiin intellectualization sublimination splitting marka way badan yihiin badan aan waxaan ku encourage garayn lahaa more kuwii aan ka soo hadalay maaragta inay su'aalana naga weydiiyaan haddii wax ku darayaan ay ku daraan kuwan kale aan soo sheegnayna hadday familiar leeyihiin they can ask questions. Okay, sounds good. Yeah, su'aalo soo weydiiya haddaad ka qabtiin repression iyo projection.